gobolka awdal wax badan baan ka hadlaynay waxaan maanta la hadlayaa taliyaha qaybta booliiska Boorama la hadlayaa mudane taliye shacabka reer Boorama iyo booliiska taliyaha u tahay sargaalka nabadgelyada u sareeya tahay waxa ka dhaxeeya iyo ganacsatada wada shaqayn fiican ba ka dhaxaysa intaan ogahay xisbiga ogahay waxaanu dareensanahay dadku inay jecel yihiin nabadgelyada booliiskana aad ula shaqeeyaan booliisku haddii aanay la shaqaynin shacabkuna booliisku shaqadoodu meel ma marto waad ogtahay waxaan maqlayay bangiyo iyo goobo caafimaad oo ciidanka booliisku harcad galeen oo isla sharci darraa u galeen oo la baadhayay baan arkay mudane taliye waxaan kuu sheegayaa waan ku ogeysiinayaa tallaabadaas inay soo noqoto aad baan uga digayaa waxa kale oo kuu sheegayaa shacabka iyo ganacsatada iyo booliiska in colaad la kala dhex dhigo waxa kale oo kuu sheegayaa inaad ka foojignaato talooyinka lugooyada ay saraakiisha ka hooseysa qaarkood bixinayaan aad baan talada uga foojigno kala fiiro gaar ah u yeelaban leh anigu waxaan u haystaa khalad ka dhacay booliiskan u haystaa waxaan taliyaha kula talinayaa booliiska iyo shacabka iyo ganacsatada iyo la culeysiin taliye nabadgelyada ka masuula waad ogtahay Boorama inaan dhiibi jirin laakiin tallaabooyin aan fiicnayn markay ciidankaagu qaadaan waxay iman doontaa inay shacabka iyo booliisku isnacaan aad uga digtoonaataan ugu sheegaan guud ahaan shacabka reer Somaliland waxaan maanta anigu leeyahay oo halkan uga fariin uga dirayaa war sharciyada hadaynu ku kala tagno waxay dawladnimadeenu ku dambeyn doontaa boqor Muuse hogaamiyo oo qabaa'ilka badhna ay isaga mubaayaca wixii loo jiray kula jiraan badhna dagaal kala soo horjeestaan nuux kadiye TV-ga caalamiga Star Boorama